السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا داوديال الله يدي شرفه هالكم وابوق قرب ميديا marka hore intaan ugu dagaalin programka aan idin wado waxaan si xushmad idin ka codsanayaa haddii muuqaalkan idin soo gaaro inaan like noo taabataan sidoo kale muuqaalkan oo ah barnaamij muhiim ah oo halkan laga baafinayo nin odaya oo qolob baafinayso xaaskiisa hore ay baafinayso baan wax inaan si shir gareysan oo fogeysaan si ay isu helaan dadka isbaafinaya sidoo kale inaad muuqaalkan aad buga cusub ku cusubna follow noo tiraado YouTube ka subscribe insha Allah soo dhawaada marka soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin la wadaago daawadayaal qof dumar ah oo joogta Mareykanka ayaa la soo xiriirtay waxay baafinaysaa nin odaya oo ay muddo hadda kala maqan yihiin muddo hadda gaaraysa 7 sano ay kala maqan yihiin isugu dambeysay ayaa waxay tiri waxaan baafinayaa nin odaya oo caruur u dhalay si gaar ah waxay baafintan ila soo xiriirtay ninkan ehelkiisa ama aabihiis baa qardhood ahaan jiray oo qardho ku noolaan jiray kasaas ila soo xiriirtay fariintaas qardhood iyo ummadda Soomaaliyeed iyo Masdar Puntland iyo gaarsi ninka odayga ah hadda dano iskaga xiran yihiin oo caruur u dhashay waxay tiri meel jaani qirib ku dameeyay baan la ah marka waxay tiri fariinta iyo gaarsi idinkuna share gareeyo markaan sheego ninkaas magac naanis dheer uu leeyahay dabcan wixii naanista aad garanaysaan inaad soo mudshan galeysaan oo tirada war halkan bal magac u dhow laga baafinaya marka yaan warkan ku badin waxa ila soo xiriirtay saan marka idin sheegay qof xaasa qof dumar ah aan dhehe oo dibadda joogta gaar ahaan Mareykanka markay tiri waxa halkan ka baafinaya bay tiri Khadar Umar Wargeys waxaan uu aabihi ahaa nin reer qardhood oo reer qardhoodkii hore asalka hore qardhood tagi jiray buu ahaa aabihiis wiilka la baafinayo aabihi waa nin reer qardhood bay tiri waxaana baafinaya xaaskiisa oo 2014 ay ugu wardameysay markaas ay joogtay dalka Djibouti isuguna wardameysay sanadkii 2014 Djibouti iba isugu wardameysay kadibna iyadoo Djibouti wada jooga gabadhan waa dhooftay dibadda aaday Mareykanka ay gashay ilaa waagi ay ugu wardameysay leedahay gabadhaas Mareykanka ay joogtaa waa ila soo xiriirtay cidii ninka odayga ah haduu muuqaalkan daawado ama ehelkiisu ay daawadaan haday rabaan in gabadha la xiriiraan oo aan isku xirno annaga xiriirkeeda hayna oo lambarkeedii meesha laga xiriir kul aan laga hayna annaga ayaa ku xiriirna kadib insha Allah waan xaaskiisa hore oo dabcan caruur u dhashay halka in aad loo fahmo waa muhiim ah hadda cid kasta oo akhbaartan ama qoyskaas mid kamid ah haysa falan hala soo xiriirto Qardho Media annaga ayaa insha Allah isku xiriirin doona gabadha wax baafinayso Mareykanka joogta ninka odayga ah oo la baafinayo insha Allah annaga isku xiriirin doona marka aad iyo aad ma santiin falan baafintan share gareeya oo cidii aad garanaysaan oo aad hadaad ka garanaysaan qoyska Khadar Umar Wargeys halkan uga yeero oo ka soo mudshan gareeya insha Allah aad iyo aad ma santiin falan Allah idin sharfo arin muhiim ah ama hawl muhiim ah ama dan muhiim ah gabadhu ka leedahay gabadhaas baafinaysa ninka odayga oo Mareykanka joogta marka muddan xiriirkiisa raadinay lambaradiisii ehelkiisii meelan ka raadiyo marka isagoo Puntland jooga igu wardameysay tiri aad iyo aad ma santiin falan muuqaalkan share gareeyo asxaabtan la wada